koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan wariyaada kalamaan waxaa la yidhi koox magaceed iyo kalamaan kelmad weeye kasmadii bulsho weynta iyo kolba xaaladda taagan lagu soo wada kooboo kaftan loogu macneeyo kooxduna waa kalamaan oo baarlamaan kala weeyoon kursi qaybsigii beeshiyo lagu dooran kalsooni laguna dhaarin kitaab warnamiyo anan may basiin lahaa ammaan howal taraase madaxweyne ismaaciil umar geelle yo inti baalan weelika buubu fadi kalamaanoo maalin kasta la dhegaysan ninka noo sharaxaya iyo dawladdan aan idhaa maalinkii la doortay la joogna ninka waxqabadkeeda telefishinka la soo fadhiista asagoo ka sheekaynaya waxba isma doorshaan waradeer dhegaysta sanad guuradii kulmiye iyo tii nabad iyo nolol waaba iskaleene aryaadhaha kalamaan dadka sheegsheegaya xabad kama ogee axmed jaynax wuxuu yidhi gabdoonkan aad u aqaan miyuu yidhi kii helikobtar baaloshaha aan wareegdaaya hadda ka hor nigerian kooba ka soo qaadna miyuu yidhi nigeriya maxamed siyaada ku dhintay allah u naxariiste ma shabaab iyo boko xaraam aan isku biiray nigeriya maxaad ka rabtiin arwaa waalantiina warkaan hayga dhex gelinee axmed jaynax wuxuu yidhi kaftaankay kaalamaan dhahan waa kaydsaahahee kohsama kaftankay kaalamaan dhahan waa kaydsaahahee kohsama haye iyo hadda kohsamaaya waxa uu leeyahay dhibsamaaya mawdhaho etoobiya miyuu joogaa warwar ma haysiine soshal mediyaha nabadii nolol waa looga adkaaday leegalankakurooyey masheerka puntland miyaa ciidamadii soshal mediyaha ka difaaci lahaayoo deni ku baaqay soo fasaxday majanana layf soo galay war ninka asagu labadaba iskugu filanee cabdiraxmaan cabdishakuur miyaadan arag war adeero xaalkiinnu ma isku dhuuqba war waad waalateene shalay waxaa boost like comment loof iyo sharba isku helay kulmiyay ahayd oo facebook qabsatay oo maba ogeyna kulmiyana maxoogaga wadaniyiintay samaysatay mar haddii nabadii nool cabdinuur maxamed axmed ka maqan yahay soshal mediya waa looga adag yahay war calijaab ku jira muxuu ugu sii simi waayey yaa kooshinaa damca inuu nabadya nolol ku difaaco facebooka waase looga taagroonaaday waxaa carabo hore u tiri laa ta'aamin xataa akhuuka warnimayow anigu waa yaabae furunta dagaal goormay facebooka ka furanta war adeer anigu waan la yaabanahaye somalilan aqoonsi miyay ka weyday facebookana sheegaysaan war waxaa la yidhi ku danaysasho gaara haddii aad ka filaysay kulmiya waa kulmiyoo kala sooc ma yaqaana bulshaduu kulmiya ma haddaad ogaatay adiga war shacbigan khasaare intaa lagu qamaaraayo ayaan qayladhaantiisan leeyaa wax naga qaata qayladhaan waa wereey qayladhaan waa wereey nabad iyo noolal miyaad nacdeen qayladhaan waa wereey qayladhaan waa wereey war adigu madeeyow ma waalan tahay nabad iyo nolol iyo waa waray ba'ayay maxaa isku keenay war adeer miyaa laydinka badiyey arooy qayladhaantaa iska dhaafa waa kulansantiina korbooday koofacad ilaahay ma idinka dhige war ma dablayshin bir cusubba maya waa googaacadalayse waxaa la yidhi afartaa tix suugaana iyo maanse quruxdeed dheh gabayada jacaylkaa inaan dib ugu soo laabto oon qayb ka tiriyaahe waa lagama maarmaane dawladdii buntland baan rabaa inaan salaamaaye liilan iyo haddii markis iyo ruushkii lala yaabay abiy yaafaweergaa haddana nooga sii darane bal ogaada dunidii horay soo celceliyeene intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war weligabu walayaad sheegase sheeg ka soo bahaytilehta unankanagana weligay gabay ka bilaabahaya afartaas tix suugaana iyo maase quruxdeerdheb ma arkin kan ka hor qabyo hore u dhammaystiraaye soomaalidu qabiya kiibir marna qaadan mayse ogow arro war runtiisu sirkaalkii gedi ka hadalaay may baeray kasaasana nairobi ka gadeeyeen ciidankay waana kacashayeen eri intahaanta qabada ah qaar ka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay miyaa laga wadaa kay qaloola tahayo wayno qori afkii ya ilmaandi abdilow warwar ma haysaane madaxweynihii somalilan muuse biixi xildhiid haddau xildiiday xilkaxa u qabtay war ma iscasile war muqdisho muu yimid handaraabka miyuu fura u helay maxay ra'iis feereen arooda aan wada hadalna maas yidhinne warwalaweynay madaxweynaha muuse biixi ciyaarta ka daaya warwarka hanaga waalinee madaxweynaha waxaa lagu soo dhoweeyey adis ababa roog guduudanna waa loo dhiga gaari calanka
somalilan ka lushana waa lagu qaada markaa somalilan in midowga afrika aqoonsanayaa baan u malaynaya war qawdhanow madaxweynaha ardisababa lagu soo dhaweeyey waa farmaajo adiga say wax kaa yihiin war hatana ma bahi yaabnay una war anigu dhexdhexaad baan ahay waxaan sheegayaa in labada madaxweyne ay laba wasiir soo dhaweeyeen aryaada waxaan maqli jira nin meel uu caddahay meelu ka madow war horta somalilan marka maqashaan maxaa la qarraclaysaan wareeraa war ma haysaane ra'iisul wasaare abiy axmed madaxdii midowga afrika oo isugu tagtay addis ababa mid kasta asaa gaari uu gacantiisa ku wado airboorka uga soo qaaday hoteelkana ku geynayey laakiin madaxweyne farmaajo asagu sooma qaadina maxaa dhacay meeshii socodkaada ku bato suuraddaada ku dhuntaa la yidhi war adeero madaxweyne muuse biixi ma abiy axmed baa baabuurka ku soo qaaday war madaxda soomaalida midna abiy axmed ma soo dhowaynin bahdilkaana iyagaa iskugu wacanoo laba meesha ku tegey lax walbaana shilalka isdhigtaabaa lagu qalaabaa la yidhi aan isweheshanno walaalaya aan wada jirno walaalaya miyaysan maqal war ictiraaf miyayna siinayaan warna miyaw ilma adeer uurkoon hayna arantiyo matoosaso leeri walaala isnacab waa xabaala badiyaan waana xoolo yaraadaan baa la yidhi war maanta ingiriisaan ku gabyahay aga dhegaysta ambassador Yamamoto of United States partialistamia I know I see well his affairs haye abwaankii kurburooga war waxaa la yidhi haddii aad tahay mucaarad waxaa ku hor yaal shuruudo la buuxinayee dhegayso facebook brofaylka saaro rejiimka kenya haysta imaaraadkana warkooda ka baar caawoo dhan suuqa twitter haddaad ka weyso websaytyada carabta raadso haddaadan turjumi aqoonin sidiisa ku koobiyeyso ku baastigaree boggaaga guruubyana sheer ku sii dheh layfkana weligaa ka qayli haddii aad tahay muxaafid waxaa ku hor yaal shuruudo la buuxinayee dhegaysta dee taasi waa dawladda un ammaan adiina bakaawis may weelay leh yako tabti war siifiigaaga hankoolo waxaa iiga soo baxay inaan mucaaradkaa sheegayda ka mid tahay aniga kanoo kale inaan wataan baarihii bariiska ka baxaayo jawhar intan geestaan ul mariida ku garaaca wargooyow naga tag adigna farmaajo ii geeya taagan tahay arnaga tagooyoobow adiguna aryaa farmaajo ii geeya aad weli taagan tahay cabdullow guurguurka iska daa soodiga hodhanoo yidhi guri dhagaxa wuu dumin karaa gabayga gooyoobe war ma haysiine xildhibaanadii laga soo doortay mandheera ee dalka kenya waxay dhahaan wasiir janan si degdega mandheeraha ugu baxa fidnada iyo hubka uu ka abuurayna mandheera ma ogolin dowladda kenyana waxaan ka rabnaa balaayada inoo qoranaysa inay naga bixiso war adeer annagaa magangelis janan siin lahayne muxuu jumhuuriyadda somalilan u soo geli waayey war wasiir janan wuxuu yidhi ra'iisul wasaare khayre dembiga layga galay waxba kuma lahayn uu yidhi 3 nin ay heshiidou yidhi madaxweyne farmaajo taliya fahad yaasiin iyo taliya kulane saadaqna waa la ogaayuu yidhi war wax saadaq uu og yahay miyuusan khayre ogeyn warwarkaana ay dhex gelinina janan waxuu kaloo yidhi sakiya waa habaryartay meel laygu xiray iyo meel laygu daayana midna waxba kama oga kuna dheeraa maayo gabadhaas waxa loo sheegay sheegtay war hadduu gabadha ka dhowrsaday waa nin weyn oo dhaqankii dhowraya janane waxaan la yaabanahay fahad iyo farmaajo horaan u naqiinay kulanana xaguu ka yimi hayaay war waa ciyaaryahan weyn oo qarsoon kalamaanay maanta afkiinnan ku hadlayaa codsina waa jeedinayaae igu raaca hayehe aan iska hubinee soodayhe mugaasaan amba kugu raacaynaa amba kugu diidaynaahe war doorashada xoogga waddaniyiinta baad nagu gaada rabtaa war afkakiiday silinka daho mugoradaaso ada afkiinaan ku dahoaya i dhegaysta maynin arta warka iga sugee dhegaysta waxaan daawaday ardadii puntland oo mudaharaad samaysay oo cabatay waana ka calool xumooday marka dawladda soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland waxaan ka codsanayaa ardaydaas waalidiintii dhalay rafaadka la soo mareen oo ku soo tiiriya tacabeeleen oo waxooda iyo jeebkooda ay wax ku soo bareen inaan mustaqbalkooda la siyaasadayn oo hoos loo fiiriyo danta ardada iyo mustaqbalka ardayda soomaaliyeed sababtoo ah waa madaxdii berrito waana mustaqbalkii ummadda waxa cuqdada lagu beerayaa xaqna uma laha wiilka ama gabadha soomaaliyeed oo dhallinyarada ah oo dadaashay oo wax baratay shahaadadeedii in nima siyaasiyiinu isku gorgoriyaan weligeen iskumaan maynaan noqon laakiin arrintan iyadaa waa kugu raacnay axmedow waran naftay maday isaaga ha kelmadii lankunka hadali hoose ka hariyi laftaan la tuuri doonin ayaan feenta laga layninaan leehay ardadaas arrintoodana hoos ha loo fiirsho maskiin war ardada ha la fiirsho hooya wax soo bartay waa qabaa arrinta ardadaas in la xalliyo naw ardayba in la isku qabsado maba ahaynba araada waa runtiinoo ardayda waa in la koolkooliyaa la kaamkaamiyaa indhaha nuurka
abaalkooda waaye waxaa horay loo yidhi arda joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahaygina siiyey isagaa ku abaale maasha allah eebaago maxamed saleebaan tubeec allah u naxariistay heestaas gooyow qaaday xaalan ka siiyey waliyaa si fiican ugu qaaday maxaad ugu gafaysaa mase nin dhintay xaal qaata wari ardaydii laanka dhibtoodii hagsho sii waaytana langdhimidii hagshay siyaasana war xishooda oo dalka u shaqeeya oo muranka iska daaya halla kala tago geedka halla kala tago geedka halla maalin kasta maxaa noogu soo qatantiin qayladan qof kale baxa waryaa baxa ku kala taga geedka naga taga tacliinta barte